وإلهي وحصوصته عديدي كستو آد قشد ميلاد كبحدا إلهي كو سمين هدات رادد وحن وحاران وواد قشي اسكاللاقو وواحد دونتا إيق وواحد دونتا عنا وواحد دونتا السماء وتراد إلهي بقى غفور رحيمة واحد هاليسو تاين مركات دمنا سنة خاتمتك وحمات نن صالحين تكمدا سلف هذه الأمة أيا وحال علماء كشكايان كتبتك قرية هي تاريخ ديسو حجك السعودية بالليل أما سفر بوها سهيدي بقى كقاضي سهيدي بقى لبا بيرو دحدودا isagoo hilin wadadii yareen maraya ayuu arkay xabad tufaax oo dariiq iska taala oo qaatay oo gaajoonayay oo ka baday xabad tufaaxi markuu ka baday calooshii ku riday gaajadii ka yar damtay ka dhaadhacday ayuu yiri xaq naas baad cuntay ayaa ku fasaxay nuskii kale iska qabtay beertii buu yimid nin beerta ka shaqeynay uu ku yiri beertan ma adiga la maya waan ka shaqeeyaa maxaa dhacay waxaan u maleyn tufaaxani beerta inuu ka soo go'o dariiqo ku dhacay waan gaajoonay nin socota ayaan ahaa nusna waa ka cunay nusna waa kan oo iska qabteen nuskan cunaha la iga cafiyay buu nuskana la iga qaato ninkii beerta lahaa baa anu beerta ma lihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maal qabeenkii halka buu degan yahay u tagay isaga hadduu ka cafinay isaga taala hadduu ka cafinay isaga u taala halkii buu ugu yimid markuu u waramay ayuu horta nuska halkan iska soo dhig buu nuskanaad haysato halka soo dhig u dhigay nuskaad cuntayna kaama saamaxayay buu ilaa shuruud baan kugu xidhay hadda shuruudda aadii buuxisid uma ka cafin waa maxay shuruuddaas inan baan dhalay buu aqalka iga dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto gabadha shanta arrimood ee ku sheegay leh haddaad iga guursato baan kaa cafin haddii kalena nuska iga aadaga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orod iska socod buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacmo ay wax ku qabata ma leh log ay ku socota ma leh ma yeelahayd adigu ar maxaa odhan lahayd ma sheega waa adag tahay soo maaha war nuskaasi nuskayga aakhirahan la taga buu odhan lahaa ma tan lixaadkiiba ka wada maqaya ma ciduu saaruu rabaad odhan lahayd ma ciduu dul saaruu rabay laakiin ninkan waa nin muumin aakhiru ku xisaabtamaya waxa uu ku xisaabtamaya xadiidkii nabi maxamed ee ahaa luqmad xaaraan qofka afkiisa geliya 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarada zamankan waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada